waxaa kaloo si rasmi ah u furmay tartanka Ramadan Kulmis Cup oo sanadkii saddexaad oo xiriir ah lagu qabanayo garoonka Salaxa ah ee Kulmis xaafadda Sarta Koofiga ee degmada Gaaraan. Tartanka ayaa sanadkan waxa uu yahay mid ka xiisa iyo xamaasad badan sanadkii hore, waxaana sanadkan nasiib u yeeshay naadiye badan kuwaas oo rajeynaya in tartanka sanadkan ay meel wacan ka gaaraan. Kulamadii furitaanka tartanka oo laba kulan ahaa waxaa nasiib u yeeshay kooxaha kale ah Power Academy iyo sidoo kale Shimidarka Academy oo kamid ah kooxaha ka qayb galaya tartanka yaryarka. Sidoo kale tartanka kooxaha waaweynka waxaa in lagu furo nasiib u yeeshay sanadkan kooxaha kale ah Al-Mustaqim iyo Lucky Boys. Furitaanka tartanka Ramadan Kulmis Cup ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin iyo taageerayaal aad u badan kuwaas oo u sacabtumayay kooxaha ciyaarayay kulamada furitaanka tartanka. Natiijooyin kala duwan ayaana ka soo baxay kulamadii kalabta ciyaaray. Kooxaha kale ah Power Academy iyo Shimidarka Academy oo ku wada jira Group A ayaa waxa uu kulankoodu ahaa mid aad u adag, iyadoo labada kooxood ay soo bandhigeen kubad ku dheehan farsamo ay aad ugu riyaaqeen taageerayaashii u soo daawasho tagay kulankaasi. Ugu dambeyn hore waxaa loo yiri kari laba nin kama wada qoslisay, waxaa guul dirqi ah oo 3-2 ah guushii ugu horeysay ee groupka A ku heshay kooxda Shimidarka Academy oo safar dheer u soo gashay ciyaarista kulankan iyagoo ka soo safray degmada Warta Nabad ee gobolka Banaadir. Dhanka kale waxaa kulankii labaad ee kooxaha waaweyn ka wada ciyaaray kooxaha kale ah Lucky Boys iyo Al-Mustaqim oo ku wada jira Group A. Kulankan ayaa ahaa mid xiisa gaar ah waxaana uu ahaa kulan inta badan ay kubadda weerar qaadaysay kooxda Al-Mustaqim, walow dhankooda kooxda Lucky Boys ay sameeyeen weeraro aad u badan balse nasiibka ayaan saacidin. Kulankan oo ahaa isaguna mid ay ka soo qayb galeen taageerayaal aad u badan, weliba taageerayaashii ugu badnaa ee kalabta soo xaadiray garoonka, ayaa waxa uu noqday mid ku soo dhamaada 4 gool iyo gool oo guushu ay ku raacday kooxda Al-Mustaqim oo noqotay koox si fiican ku bilaabatay ololaheeda tartanka sanadkan. Sidoo kale waxay xareysatay dhibcihii ugu horeeyay ee groupka ee tartanka kooxaha waaweynka. Dhinaca kale maalinta beri ah waxaa jiri doona 2 kulan oo qayb ka ah tartanka Ramadan Kulmis Cup. Kulanka koowaad waxaa ciyaari doona kooxaha kale ah FC Kabdhoodka iyo Xidigaha Koofi oo ku wada jira Group A ee tartanka kooxaha yaryarka ah, waxaana uu kulankan bilaaban doonaa 9:00 galabnimo. Sidoo kale waxaa kulanka labaad ee kooxaha waaweynka wada ciyaari doona kooxaha kale ah Biraha Juule iyo Sinai Sports Club oo ku wada jira Group A, waxaana uu kulankan bilaaban doonaa 10:00 galabnimo. Haddaba maxay kulamadaasi ku dhamaan karaan? soo saadaal ila aksar muuqaalka sina share kale haddii aad nagu cusubtahay nagu soo bir oo follow page kan Saamin Cadaala.